cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ah madaxweynaha maamulka galmudug state ayaa isku soo sharaxay madaxweynenimada maamulka gobolada mudug iyo galgaduud ee gobolada dhexe Soomaaliya kadib munaasabad lagu qabtay magaalada muqdisho ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha Qaatumo state siyaasiyiin ururka haweenka qaranka waxgarad dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xildhibaanada ubax taaliil warsame iyo Fawsiya Yuusuf Xaaji Aadan ayaa ka hadlay munaasabada uu isku soo sharaxay cabdi xasan cawaale qaybdiid inuu noqdo madaxweynaha maamulka loo dhisi doono gobolada dhexe ee mudug iyo galgaduud waxa sharafiya maanta inaan ka soo qayb galo xafladan quruxda badan ee maanta lagu soo dhaweynayo ama lagu furayo musharaxnimada jenaraal cabdi qaybdiid madaxweyne cabdi qaybdiid oo runtii aan aqoon dheer u leeyahay muddo dheerna aanu isnaqaanay oo aan garan karo waxa uu gudo iyo wuxuu galo waxaan aada u faraxsanahay inuu isu soo sharaxay mansabkaas oo muhiim u ah maanta dalka iyo goboladaas khaasatan gobolka la dhisayo waxa weeyaan goboladii Soomaaliya ugu taariikhda dheeraa dadkooduna ay ugu ficil badan yihiin waxa farxad ii ah intaasoo gobolada dhexe ah inay isugu yimaadaan xafladatan waxaana soo dhaweynayaa dhammaan musharaxiinta raba inay ka qayb galaan musharaxiintaas anigu qofna ma lihiyaa soo baxo laakiin waxaan leeyahay waryaa wax tari kara waryaa dadka wax u qaban kara waryaa maanta wax noo qaban kara waryaa maanta Soomaaliya isku keeni kara cali khaliif galleer oo ah madaxweynaha maamulka Qaatumo state ayaa dhankiisa ka hadlay musharaxnimada uu isku soo sharaxay cabdi xasan cawaale qaybdiid madaxweynaha gobolada mudug iyo galgaduud waxaana runtii qirayaa cabdi in ilaahay ku manaystay karti badan iyo ku dhac nin fikiri kara nin ku dhiiran kara markuu war sugan helo waxa dantu ay ku jirto inuu go'aan ka gaari karo fulina karo waxaan kaloo ku aqaanaa nin team work aaminsan ama wada shaqaynta haddii madax la yahay nin keligii iska buubaya wax badan ma qaban karo laakiin nin rag ay mas-uuliyadi ka dhaxayso ay wada shaqayn karaan is aamini karaan yaan cabdi ku aqaanaa ugu dambeyntii madaxweynaha maamulka galmudug state cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan inuu noqdo madaxweynaha maamulka loo dhisi doono gobolada dhexe ee mudug iyo galgaduud walaalayaal munaasabadatan aanu ku soo bandhigayno muxuuha ay ku soo bandhigeen reer galmudug ay ku soo bandhigeen oo aniga ay maaragtay musharax igu soo gudbiyeen hadday yihiin golayaasha dawladda sida golaha xukuumadda iyo baarlamaanka golaha odayaasha dhaqanka haweenka iyo dhalinyarada ayagoon kala harin aniguna aan ka aqbalay sida taas daraaddeed ayay waxa in meeshaa noqotay inaan isi sharaxo waxay ku dhiirigeliyeen inaan u soo istaaga xilkaas maadaama galmudug awal ay ahayd galmudug haatanna in labadii gobol intii aan maamulada ka mid ahayn in lagu midoobo in hal maamul oo midaysan goboladii dhexe laga dhisto maxamed cali weheliye universal TV magaalada muqdisho